daawadayaal ku soo dhawaada saxafi filim soo idin soo gudbisa barnaamijyada xiisaha leh oo aynu kaga hadalno aktarada ka tirsan shirkadda Bollywood ee dalkaasi Hindiya ee dhammaanba shirkadaha dalkaasi filimada ka sameeya. daawadayaal barnaamijkan waxa aynu kaga hadli doonaa sanadka cusub ee 2018 aktaradii ka hadlay oo dambaale u gudbiya taageerayaashooda dunida daafaheeda jooga. aktaradaasi ka hadlay sanadka cusub ee 2018 waxaa ka mid ah aktarada Alia Bhatt, Anushka Sharma, Akshay Kumar, Shah Rukh Khan iyo aktaro badan. haddaba aktarada ka hadlay waxa aynu ku bilaabi doonaa jilaaga caanka ee Shah Rukh Khan iyo Amitabh Bachchan oo taageerayaashooda la wadaagay sanadka cusub iyo hadaladii ay soo jeediyeen iyaga oo taageerayaashooda la hadlaya. daawadayaal sidaan wada ogsoonahay sanadka 2017 ayaa dhamaaday waxaana bilowday sanadka 2018. Akshay Kumar ayaa waxa uu taageerayaashiisa la wadaagay video muuqaal isaga oo sheegay in 2017 ay dhamaatay oo 2018 haatan la marayo. waxa uu yiri dhammaanba dadka dunida ku nool iyo taageerayaasheeda aniga gaarka iyaba waxaan u rajaynayaa guulo fara badan wax kasta oo qalbigooda ku jirana in ay helaan sanadka 2018. sidoo kale arintaasi waxaa ka hadlay jilaaga caanka ee Amitabh Bachchan oo isagu taageerayaashiisa la hadlayay. waxa uuna sheegay hadaladiisii ay ka mid ahaayeen markii uu sanadka 2018 ka hadlayay. waxa uu yiri waa dhamaadkii usbuuca, waa dhamaadkii bisha iyo dhamaadkii sanadka 2017. waxa inoo bilaaban doontaa ayuu yiri 365 maalmood oo ka kooban sanadka 2018. sanadkii tagay waxa uu ku dhamaaday buu yiri maalin axada. waxa aynu bishu ahayd 31 bishii December 2017. waxa uu yiri isaga oo taageerayaashiisa la hadlaya markaasi oo uu ku sugnaa jilaagan caanka xaafadda Juhu ee magaalada Mumbai isaga markaasi uu ka degan yahay ama hoygiisa uu ku yaalo. waxaa muuqaalo badan oo video iyo sawir ah la arkay isaga oo taageerayaashiisa isugu soo baxay banaanka qaarna u gacan qaadaya oo salaamaya qaarna sawir ay la gelayaan. waxa uu dhammaanba sheegay inuu u rajaynayo sanadka cusub in ay la kulmaan wax kasta oo ay markaasi rajaynayaan. jilaaga Shah Rukh Khan sida la wada ogsoon yahay iyo directorkiisa Alan Lee Rai ayaa 5 PM saacada dalkaasi Hindiya taageerayaashooda waxa ay la wadaageen filimka cusub ee uu jilaagan daadihinayo. sidoo kale waxaa ka hadlay sanadka cusub tirishada caanka ee Taapsee Pannu oo iyaduna sheegtay markay barteeda Twitterka kula hadlaysay taageerayaasheeda sanadkan ha idiin noqdo sanad wanaagsan. aktaro badan ayaa ka hadlay waxaana ka mid ah aktaradaasi aktarka caanka ee lagu magacaabo Ajay Devgan. Ajay Devgan waxa uu yiri sanad wanaagsan oo wacan 2018. taageerayaasheeda waxaan u rajaynayaa buu yiri inuu sanadkan noqdo sanad nabad ku dhamaada. sidoo kale Alia Bhatt ayaa ka hadashay waxa ay tiri sanadkan ha noqdo sanadkii jacaylka, sanadkan ha noqdo sanadkii asxaabta ama saaxiibada ay isticlaanayeen, sanadkan ha kuu noqdo sanadkii aad faamilkaaga jacayl u muujin lahayd, sanadkan ha noqdo sanadkii aad jeclaan lahayd shaqada adiga aad qabatid, sanadkan ha noqdo sanad dunidoo dhammi uu noqdo sanadkii jacaylka, sanadkan ha noqdo sanad aynu xayawaanaadka jecelnahay, sanadkan ha noqdo sanadkii aad adiga nafsadaada jeclaan lahayd. sanadkan waxa ay tiri waxaan rajaynayaa ummadda dunida korkeeda ku nool oo dhan in uu jacayl wada haleelo. Bipasha Basu oo ka mid ah aktarada shirkadda Bollywood ayaa waxa ay sheegtay iyaduna mar ay ka hadlaysay sanadka cusub sanadkan waxaan rajaynayaa bay tiri inuu ku soo dhamaado farxad iyo nabadgelyo iyo caafimaad iyo nolol dheeriya. sidoo kale aktarada ka hadlay waxaa ka mid ah Anushka Sharma. waxa ay tiri dhammaantiinba farxad ayaan idiin rajaynayaa iyo caafimaad iyo maxabba iyo kalgacal. Aftab Shivdanzi oo ka mid ah aktarada isna ka hadlay waxa uu yiri waa maalintii koowaad ee adiga cimrigaaga inta ka dhiman isaga oo markaasi ka hadlayay in maalinta sanadka 2018 bilowgeeda ay tahay adiga nolol cusub oo ku bilaabatay. waxa uu yiri waxaan idiin rajaynayaa farxad. sidoo kale Kajal ayaa ka hadashay waxa ay tiri qof walba waxaan u rajaynayaa bay tiri sanadka 2018 in ay bini'aadantinimada ku soo degto. aan xaqiijina bay tiri bini'aadantinimada inaga oo midka kale u naxariisanayo cafisna u fidinayo. waxaan dhihi karaa Kajal waxa ay ka mid tahay atriishooyinka hadaladii ugu wanaagsanaa sanadka 2018 ku soo dhaweeyay. Sharda ayaa iyadana ka mid ah waxa ay tiri qof kasta waxaan u rajaynayaa in uu sanadkan u noqdo sanad la yaab leh oo mucjiso ku abuura. Sunil Leon ayaa iyaduna waxa ay tiri sanad wanaagsan qof kasta waxaan idiin rajaynayaa sanadkan sanad wanaagsan
waxa aan ku sugnahay bay tiri Cape Town ee dalka South Africa. daawadayaal ma soo koobi karno aktarada ka hadlay sanadka cusub ee 2018 balse intaas ayaan barnaamijka ku soo ekeynaya. barnaamijka waxaa idin daadihinaya anigoo Caaqil Cabdi Faarax. waxaad ka daawanaysaan Saxafi Films oo ah channelka ugu afka dheer ee ka faallooda arrimaha Bollywoodka amaba filimada dalkaasi Hindiya lagu sameeyo. inagoo isku duuban oo abaada Saxafi Filmsna waxaynu idinkaga tegaynaa intaynu barnaamijkan lamid ku kulmayno sidaa iyo nabad gelyo.